basaas aan gidaarada iyo suuqyada wareegin, jaasuus aan wasaaradaha dawladaha u dusin, balse waxa uu warka ka qaadi jiray guriga madaxweyne Carbeed maxaa yeelay wuxuu ahaa dhakhtarkii basaaska ahaa. Cali Al-Cadfi waxa uu ku dhashay xaafadda Sayid Zaynab ee magaalada Qaahira sanadii 1922. Dugsigii dhexe ayuu waxbarashada uga tegey si uu uga shaqeeyo foornooyinka, kadib waxa uu noqday farmashiile. Muddo kadib waxa uu doorbiday inuu noqdo masaajeeye, duuge ama daliige. waxaa macaamiil u ahaa dadka dabaqadda sare. 1963 ayuu u safray Maraykanka kadibna Netherland si uu u noqdo dhakhtar ku takhasusay daweynta iyo daawooyinka dabiiciga ah, balse waxa uu la yimid qorshe bedelay noloshiisii. waxa uu tagay safaaradda Israa'iil ee Amsterdam, waxa uu u bandhigay rabitaankiisa ah shahaado been abuur ah. intaas kadibna uu Israa'iil ugu khidmaynayo mihnada basaasnimada. faylasha iyo macluumaadka Cali Al-Cadfi waxaa lagu wareejiyey Ed Bergman oo ahaa sarkaal sare oo ka tirsanaa Mossad. waxaa la siiyey tababar degdeg ah oo basaasnimada ah, kadibna waxaa laga caawiyey inuu tababar caafimaad gaar ahaan mihnadii uu jeclaa ee daliigidda ku sameeyo isbitaallada waaweyn ee Netherland. intaas kadibna waxaa loo gacan geliyey shahaadadii been abuurka ahayd. waxa uu noqday ninka keliya ee Masar masaajaynta ama daliigidda heer sare ka gaadhay. kadibna maxaa dhacay? markii uu Masar ku laabtay, Israa'iil waxa ay ka caawisay sidii uu ku heli lahaa dawooyinka jirka lagu daliigo kuwooda ugu wanaagsan. Israa'iil waxay u samaysay dicaayado badan, iyadoo hay-adaha qabta shirarka caalamiga ah ee caafimaadka ku cadaadin jirtay inay marti qaadaan Cali Al-Cadfi. goobtiisa waxaa laga xayeysiin jiray tiifiyada ugu waaweyn ee qaaradda Yurub. masaajeeyihii Maxamed Anwar Saadaat. Cali Al-Cadfi waxaa la soo gaarsiiyey warqad ka timid Saadaat oo looga dalbanayo inuu masaajeeyo u noqdo Saadaat. waxa uu muddo 7 sano ah Israa'iil u gudbin jiray wax kasta oo ka dhaca guriga Saadaat. fashilkii dhakhtarkii basaaska ahaa. Cali Al-Cadfi ayaa aaminay inaan la fahmi karin marnaba, maadaama uu 7 sano ku jiray aqalka Saadaat. waxa uu bilaabay inuu u safro qaaradda Yurub, kadibna Amsterdam. midda ugu daran ayaa ahayd markii uu isagoo lugaynaya galay safaaraddii Israa'iil ee Amsterdam. markaasna waxaa arkay jawaasiis Masaari ah, waxayna sawireen isaga oo la taagan saraakiil sarsare oo ka tirsan hay-adda sirdoonka Israa'iil ee Mossad. sawirradii iyo macluumaadyo kale ayay uga hormariyeen Qaahira. kadibna waxaa gacanta ku dhigay Korneel Maxamed Nasiim, waxaana lagu xukumay dil togasho ah Cali Al-Cadfi. balse Saadaat ayaa soo farageliyey, kadibna waxaa lagu xukumay 15 sano oo xarig ah iyo shaqo adag. ugu dambayn waxa uu ku geeriyooday jeelka. qoyskiisuna waxa ay diideen inay guddoomaan meydkiisa, waxayna ka bari noqdeen falkii uu ku kacay. maxaa Saadaat ku kalifay inuu xukunka dilka ah ka dhaafo ninkii qolkiisa jiifka ah warka ka qaadi jiray? ma isagaaba mise